Assalaamu calaykum asxaabtayda soo dhawaada meel kasta adduunka aad ka joogtaan. Maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago sheekada aad ku xanuunka badan ee soo martay qoftaan meesha idinkaga muuqato. Qoftaan magaceeda waxaa la dhahaa Terry, waxay kasoo jeedaa waddanka Mareykanka. Terry waxay la kulantay qiso aad u xanuun badan, laakiin nasiib wanaag way ka badbaaday qisadaas oo loogu talagalay inay ku dhimato. wax sidaas u galaayo Terry wuxuu ahaa qof ee mar adduunka asaga ugu jecleed. Sanadka markuu ahaa 1996 ay Terry waxay guursatay nin la dhahayay David Larson. Hal sano oo wada sheekeysi ka bacdi Terry oo markaas aaminsaneed inay tahay naagta adduunka ugu nasiibka badan ee heshay qofkii ugu fiicnaa ee nolosha ay la wadaagi lahayd, maadaama uu David yahay nin ka shaqeeyo hawada shaqo aad u fiican uu haysto saas oo kalena uu degan yahay guri uu asaga leeyahay. Laakiin nasiib daro isla bishii ugu horeysay ee honeymoonka ee aqalgalkooda Terry waxay kala kulantay ninkeeda wiji labaad u qarsoonaa, kaasoo ah inuu yahay qof carab badan, control badan, buuq jecel, farxad rabin, isla markaasna u gacan qaado. saasay tahay Terry ninkeedu way iskaga rabtay oo waxay aaminsaneed inuu isbedeli doono ama iyada wax ka bedeli doonto. Isla markiiba uu raya qaaday. Sanadkii ku xigay 97 ayay gabar u dhashay. Haddana 2 sano ka bacdi ayay gabar kale u dhashay. Dhammaan saaxiibadooda iyo familkooda, deriskooda waxay ula muuqdeen qoys aad u qurux badan oo aad iskugu faraxsan. Laakiin Terry si hoos ayay dhibano u ahayd ninkeeda. Markuu ahaa sanadka 1999 ay Terry waxay go'aan ku gaartay inay ninkan ka dalbato furiin, maadaama ay dhahday aan uga baqaayo markaan caruurta nafteyda soo dhaaftay caruurta inuu waxyeelay ee ka baqday. waxay iska daba jiitamaan ismaxkamadeeyaan. Ugu dambeyn sanadkii 2001 ayay si rasmi u kala tageen. Laakiin maxkamadda ayaa waxay go'aamisay in Terry iyo Larson yeeshaan xiriir dhow iyo wada shaqeyn, sidaasna ay caruurta ku wada korsadaan. Arrinkaas Terry aad uguma farxin sababtoo waxay tahay waxay ogeed dhaqanka ninkan iyo qalafsanaantiisa iyo waxyeeladiisa, fudeedkiisa, gacan qaadkiisa. Laakiin saasay tahay maxkamadda amarkeeda maadaama uu yahay way ku qasbaneed inay xiriir la yeelato. Labadoodii gabdhood saasay ku wada heesanayeen, marna asagay la joogayeen, marna ayaday la joogayeen. Qoftaan jugtii way ka nasatay, waxay bilowday markaan inay xiriiro kala suubiso. Waxay baratay nin la dhaho Nick oo ka shaqeeyo kaniisadda oo ka mid ah nimanka kaniisadda ka heeso. Nick iyo ayadii ugu dambeyn way isguursadeen. 4 sano markii ka soo wareegatay kala tagoodii ayada iyo David weli David uu la qadabo iyo problemi iskaga wadiyo oo iska sabrin naagtaan iska jeclaala inay guriga u joogto iska garaaco maalin walba. Laakiin Terry markaan ay tahay xaaska Nick ayadii asagana ay muddo kala maqan yihiin ilaa 4 sano ku dhawaad 2004 ayay Terry imaatay guriga David ayadoo rabtay inay ka kaxeysato labadeeda gabdhood oo xaafadiisa joogtay maalinkaas. Wuxuu ku dhahay David markay imaatay Terry guriga imaatay wuxuu ku dhahay gabdhihii yararka ahaa waxay cayaarayaan dhuumashow kaalay kasoo bixi dhuumashowga waxay rabaan inaad adiga soo bixisid. Miskiintan waxay dhahday markii hore cabsi ay gashay haddana way iska aamintay oo waxay istir gabdhaha yararka niyadda ka jibinayeen bal la soo cayaaro soo bixi adigoo la cayaaraya soo baxso. Gudaha markay saas u gashay ayuu madaxa wuxuu kaga dhuftay budkana u jeedaan. Isla markiiba dhulkay ku dhacday, dhiigga ka soo daatay, qof madaxa lagu dhufto waa dareemi kartaa. Kadib wuxuu bilaabay inuu dhaho gabdhahayga igama kaxaysanaysid. Waxay dhihi jirtay abuser aad tahay, haddaan ku tusinaya abuse-ka wuxuu yahay. Welina intaas jirdil fara badan uu ku sii waday. Markii dambe wuxuu soo qaatay koolo, soo qaatay sharooto sharootada weyn. Wuxuu bilaabay inuu xidhaday gacmaha iga xiriyo, lugaha iga xiro, afka iyo wajiga dhan indhaha uu ka xiro, neeftina ku dhajiyo damcay adiga afka ka qabtay u qaylin. Markuu isdhaa qaftaada waa jilcisay banaanku u baxay. Wuxuu soo qaatay bahal oo diyaarsaday oo dustbin-ka oo lagu rido qashinka lagu aruuriyo baaldiyaasha qashinka. Qaftiyo xirxiran baaldiga qashinka ku dhex riday. Kabacdina wuxuu haystay gaariga xaajiyada la dhaho, gaariga xaajiyada ahayd oo baaldigii ay ku dhex jirtay gadaal ka saartay. Kadib gudaha iska galay si uu caruurta u soo kaxeysto oo uu caruurtan u qaado ayadana uu meesha dambe ugu qaado meesha rabo u wada inuu geeyo.
laakiin Nick muusan ogeyn inay wadato Terry taleefankeeda. Terry gacmaha maadaama ay ka sharotisnayd si dhib la ay hal gacan oo la soo baxday. Gacanta markii la soo baxdayna waxay soo baxsatay mobilkeedii. Waxay wacday 911 waxay ku dhahday waxaa isku dayay inuu idilo ninkeygii hore. Waxay sidoo kale u sheegtay addresskiisii. Laakiin qofka taleefanka ka qabta markaas Terry oo joogay xafiiska 911ka saas muusan daneenin. Wuxuu u qaatay qof iskaga dhedheelayo. Wuxuu ku weydiiyay su'aal ah see taleefan u haysataa haddii qof ku dilayo ama ninka ku dilayo taleefanku ka qaadi lahaa. Saasay tahayba qofkii wuxuu ka qoray addresska oo u sheegtay addresska ninka. Waxay samaysay markaa ninkii markuu soo galay shib ayay dhahday neefta isku dhijisay ma dhaqaaqin. Ninkii wuu kaxeeyay gaarigiisa markuu meesha ka dhaqaajiyay uu saas uga dhaqaaqay waxaa imaadeen booliiskii ordayo. Waxay dhahday Terry يعني waa maqlaay tir sharqanta baabuurta booliiska imaanayaan codkooda laakiin waa isdhaafnay dhahday. Intii uu sii waday ayaa haddana mar labaad booliiska wacday ayadoo markaan isdejinayso isku dayayso inay booliiska ka dhaadhiciso sida wax u jiraan. Waxaan u sheegtay qofkee tahay iyo qofka dhibaateynayo iyo inuu gaarigii ku qaaday booliiskiina ay isdhaafeen. Booliiska guriga joogana waxayba arkeenba in uu meeshan qof lagu dilay oo dhiig dhulka ku yaalo oo sidoo kalena ay taalo box laga baxay bastoolad. Davidna bastoolad wuu watay oo naagtan wuu bedeli kariyay laakiin ma rabin inuu markaas si fudud ku dhaafsiyo nafta. Kadib waxay wacday ninkeeda Nick waxay ku dhahday intaas gaarigu ku sii wadaaya ninkii ayadu uu sii wadaa meel uu wataa. Ninkeeda Nick waxay ku tiri saas wax ay ugu dhaceen. Ninkii haddana orod isku taabtay Nick booliisku wuxuu ku yiri xaaskeyga iyo labadeeda gabdhood maqan halkaasina ku aaday dhibaatadaas aan haysato. Arrinkii markii wuu weynaaday booliiskii waxay bilaabeen baaritaan inay raadiyaan David oo ku eedeysan markaas inuu geystay afduub oo hooyo labadeeda gabdhood ninkii David ahaa kama baqasnaba labadiisa gabdhood wuxuu geystay xaafad oo naag u ilaalinayso u geystay. Intuu sii wada Terry u waday meesha uu ku xabsi lahaa uu ku xiri lahaa ayaa Terry waxay samaysay waxay isdhahday bal dhaqdhaqaaq sameeyo ama oo daboolka caaga qashinka daboolkiisa iska feed waa intaas dadku arkaan baabuurka wadada marayso. Laakiin isla markii uu haadka ka dhex arkay inuu caaga nuuxsanayo ee ka bixi rabto baabuurku dhinac istaajistay wuu u soo degtay. Asas markuu ugu soo degay ayaa taleefankeeda soo dhacay. Taleefankii uu ka qaaday adiga ayadiina meesha ku sii xirxiray wuu kaxeeyay. Wuxuu meeshii uu u soo kireystay inuu naagtan ku naf baxdo uu geeyay. Meel bakhaar waaye adiga alaabaha la dhigtaa isbeerka iyo wixii dadka ay rabaan ay dhigtaan meel la kireysto waaye. Meeshii uu geeyay baraf badan oo dusha ka saaray already ayadaaba dilaneed qof dhaawacan ay ahayd meeshii ku xiray. Ilmihiisina naagaab u heysaba u geystay. Ninkan dib la'aan sida inuu waxba geysan wuxuu iska tagay shaqadiisu tagay markii ay ahayd 6 galabtii. Meeshaas markii shaqada already booliiska ku sugayeen oo waxa uu ku eedeysnaa markaas inuu la la'yahay xaaskiisii hore iyo ilmihiisa. Booliiskii aday waraysi dheer ku wadeen wuxuu ku dhahan sheeg xaaskaaga horta uu sheegay labadii gabdhood wuxuu dhahay xaafadaas ay joogaan labadii gabdhood waa la soo kaxeeyay. Waxa la xaaska sheeg wuxuu yiri xaaskii markii hore ma arkin markii dambena wuxuu yiri xaaskii ayadoo buuris wadatay soo weerartay ii timaaday. Aakhirkii intii waraysiga ay ku wadeen booliiska ayaa haddana waxay baareen boorsidiisa wallet-ka oo jeebka laga shado kaararkii ugu jiray dhan nambaradii ku qornaayeen waceen kaararkii. Markii dambe waxay heleen kaar oo leedahay shirkadda uu ka soo kireystay meesha ayada uu ku soo xiray. Shirkadda waceen booliiskii waxay ku dhaheen ninkaas saas ma aragteen. Shirkaddu waxay tiri ninkan shalow meel naga kireystay ama shalow nala joogay oo meeshan shalow joogay. Addresskii ee shirkadda u sheegtay booliiska ayay booliiskii qaateen way aadeen. Markay meesha tageen waxay u tageen Terry oo tacbaantay oo xilligaas adiga 26 saac 27 saacadood dhaawac ahayd xirxirneed caaga ku dhex jirtay. Markaasna aad u daciiftay oo barartay oo xaalkeeda uusan fiicneen. Booliisku waxay dhaheen haddaan saacad ka soo daahi lahayn waxa u imaan lahayn meedkeeda. Nasiib wanaagse
shirkadaas uu kaarkeed uu qaatay aa badbaadisay asaga marnaba muusa rabin inuu sheego xataa asoo bastoolad wato oo madaxa ku dhufan karo muusa rabin inuu ku dhufto because wuxuu ugu talagalay inay silac nafta kaga dhacdo ninkan inuu dilo naagtan wuu qorshaystay mana ka baqaynin cidna laakiin wuxuu rabay inay silac u dhimato nasiibkeedase kaarkaas uu qaatay aa badbaadiyey sidiiana meesha looga soo saaray cisbitaalkii la geeyey nasiib daro ilmihii yaraa caloosh ku siday ee ninkeeda dambe u dhaleysay halkaasuu ku weysay laakiin nafteeda u badbaaday maxkamadii dacwi eedeen kabacdi ninkii David Lash ahaayna waxaa lagu xukumay xabsi daa'in ayadii iyo odaygeedii labadeedii gabdhoodna sidii noloshooda ku sii wateen markii dambena caruur kale ayaa u dhashay ninkeeda Nike halkaasina sheekadeedii ku soo afjarantay Terry